قفنا ماشي مع حيتم كرو وحاسين أسكرين كمان ماشي يعني أنا حالي تدبس أسدي صاحبي أنا ما هاد واسع سو كل بدنا أركي واجر التلفون حتى هذه مكون ملينين لكن قفر دومنا يميه مفاتي يعني وحيابا بنت على الشيء وحيا ربنا عديه وحاسين بيهين أو هنا أنا أبي أو الميس مركز قالوا دي بقى ما وحيابا نوع سوكلا أو سيد صحدا مركز عن شيء وصومالي خالد يقف فاهمين ولا عليه قام فهمت طيب كيس كان لغوسو إيدي قبل كنتري علمه أي يقدر دعوي ما حاجة جواب سكو برامج على الضوئية أوكي ilmaha aniga ma dacweynin laakiin ilmaha la qaatay waa run in ilmaha la qaatay saddex wiil waa naga maqan oo la qaatay waa xasuustaa hadda ka hor qolada Denmark Danishka dawladdu waxa qabsatay oo cusuri ah dhowr boqol oo qoys oo dad ah oo Soomaaliya oo sharciyada haysteen sharciyada laga qaatay kadib iska sii tahriibay Faransiiska Jarmalka Itaaliya waa lagu kala yaacay ma fahanti qof meeshuu aadi karo aaday dad sharci laha waa guri laha guriin laga xirtay sharciyada laga qaatay xal wadankiina ku laaban kartaan qaarkood Canada meel walba la aaday kulli Soomaaliya adiga lu kuma lahayn okay saasay tahay intaas kaliya kuma sii kaanina ilmo badan way qaateen oo hal iyo laba ka ahayn sanadkaas kaliya ilmo badan qoys badan la qaatay al wada yaabay ma faatay soo aniga lu kuma lahayn mana dacweyn qof ilmihiis dacweyn karana mi so saaka markaan isku arkay programkaaga waa yaabay shooga ila noqotay waxa leeyahay waaji face oo lambar caadi leh kuma leeyahay mogtahay okay maxay ku dhacay markaas wiigaas mis dagaashadii gabadha maya dagaal oo adiga waa iska taqaanaadeen in naagtiisa buuq marmar waxa soo iska imaada dagaal yar laakiin dagaal oo ani iyada naga dhaxeeyo weyn ma jirin dagaal ma jirin may markaas okay adiga gabadha habeenkaas xaga saacad ilmaha la qaadanayo habeenka waxa ka hadlaysa ilmaha la qaadanayo maalinta ilmaha la qaadanayo habeenka xaga saacad maalinta ilmaha la qaadanayo isku meel ma joogin ba aniga adiga xaga saacad guudi xaga jift xabad isku meel ma joogin sugarta aan ku saraxay sheekada isku meel ma joogin ani Odensa joogay magaalada Odensa iyada magaalada Odensa ka baxday ilmaha waxay la aaday Jarmalka ilmaha waxay tiri waa la baxsanaa Jarmalka aaday Jarmalka ila geey okay way ku soo wacday ku tiri walaalo ilmaha la qaadanaya way ku tiri ilmaha la qaadanin koor ilmaha naagta ilmaha way la safartay waxay imaanaya ilmaha balan baa loo imaanaya soo bixi ku tiri guriga may ilmaha aniga laba bilood horta telefoon ma keenin telefoonku way bedelatay laakiin aniga Jarmalkaan ku ogaa Jarmalkaan geeyay anaa bas kala raacay Flix bas oo Jarmalka dhiibay oo kaam ku soo hubsaday okay waya ilmaha goorme la idinka qaatay ana waxa maqlay ilmihii way soo wacday waxay dhahday ilmihii hadda la qaatay Copenhagen jooga oo Copenhagen ma imaatay Jarmalkaan ku ogaay may waa soo laabtay Sweden waa soo maray Sweden way soo diideen soo waxa ifiican aan dhahay ina cunugan kale inta la ku dhalo soo iyada ilmaha la qaadana iyo sharciyada wadanka ogaalada iyo mutaqaana ma ku fikirinba waxay waa soo laabana waxa imaanaya Denmark soo cunugan meeshan ku dhalaya maadaama kuwan kale inta ku dhasheen maxay cunug ku dhalaysa qof la raadinayo oo iskuulka ilmihii la geenin oo laba bilood iska maqan oo maxaa la yeeshay kamuuni raadinooyin oo maxkamad dagaalka la ku socdo problem badan ku socdo oo wadankii ku soo noqotay aniga ma sheegin telefoonkeeda waa dansana mogta ani Jarmalkaan ku ogaaba way soo wacday waxay dhahday ilmihii hadda la qaatay ilmihii la qaatay way su'aalaha raba asaas ugu wareerin su'aalaha marka raba inaa details badan anaa ku weydiinayo oo sharax halkaas ku leeyahay laakiin waxaan rabaa si dadkeena daawanayo ay u fahmaan run iyo beesay wax u kala socdaan oo la soo akhriyo wajiyada waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha goormeed ka qaatay sanadkee ilmaha waxa la qaatay 2021 2020 mise 2021 adi 2021 around 20kii ha 20kii oo November la qaatay waayahay imse jaari maxkamad mareen maxkamada badan ay mareen adiga markii cusbaayeen oo la qaatay ilmaha maxkamadooyin badan noo soo tuuray laakiin hadda maxkamada ay soo tuuraan way yartahay laakiin koo markii la qaadanayo waxaan ku weydiin karaa imse maxkamad qiyaastii ay mareen adiga markii cusbaayeen qaadashadooda waxa marnay ilaa 3 maxkamadood camal adiga imse maxkamada tagtay inta ilmaha laga haystay imse maxkamada waa tagay maxkamadooyin badan aan tagay 3 jeer 4 jeer camal aan tagay maxkamadooyin ilaa hadda waa tagaa haddaan tagin xataa waa la xiriiraa oo lawyer baa adiga iyo gabadha imse jeer isku aragteen maxkamadda
waxaa isku aragnay adiga 2 mar 3 mar camal okay waya ciyaalku 2020 November la qaatay ilaa hadda imsi jeer booqatay adiga waxaan booqday 2 jeer 3 jeer camal ma u tagtay ilmahaaga maya booqashada xataa fiir mar xataa booqashada ay suurtagalayn daaro tab waxaa sababay brada ilmaha waxay joogaan Denmark haye aniga waxaan joogaa Italia haye Italia sharci ku leeyahay haye wadagana so Italia waa iska taqaanaa maalin waa shaqaynaysaa maalin ma shaqaynaysid waa wadan qof Soomaalida waa la socotaa kulliba ilmahan Denmark lagu haysaa so Denmark waxaa u baahan tahay markaas hotel inaad booking gareysatid meel ku degtid lawyer qabsatid oo sii tagtid oo ma fahantay so sometimes marka passport laan waa passport ma haysanin so passport Soomaaliya soo sameeyay lagu dhahay passport oo Italianka dawladdu ay naga diiday waa passport Soomaaliya soo sameeysta so passport Soomaali safaarad Roma tagay so passport Soomaali warqad cadeena in oo Soomaali ma fahantay so passport ma haysanin markaas Denmark ku aado saa darteed marka lawyer aan wakiishay lawyer-keega okay meeqa jeer tagtay oo maxkamad tagtay maxkamad waxaan tagay ilaa 3 jeer camal okay meeqa jeer aad booqatay ciyaalka isla 3daas jeer camal adiga 4 mil camal marka imsa carruur lagu tusiyay oo aragtay waxaa arkay 3 buu arkay 3 waa aragtay marka haddii lawyer-kaaga aan kula hadashiyo ما دهيس الله يكتيسه محكمة النمط محكمة أسوأ رني الله يركعه مش عارفين ممكن محكمة جوتين الله يرد ذوابا إيطاليان واي بس يعني ترجمان الدوراني لقد إيطاليان كان قاضي يعني كسر لقد إيطاليان واي أوكي مركب يكون مرقات فرس يعني محكمة دعوة جوتين الله يرد ها وين مرقات فرس لما مركب واحد نواها وراقينا واحد أوكي لا قبل قبته حيكون هذا يسي إني كأصلت مركز تيرا ثراعه ومحكمة عضو راعي ولي عن محكمة راعي نيو قبل حوجا أنا حتى واقع حناقي وحناقي سو قبل عن علمية يجديبتي ما فهمت علمية بيجعل ذي قصيصي أنا جرمر كان كوجا جرمر كيكسر لعبتي سويدن سومر إنت سومر لاتا ودم بهالمر إسك سومرتي كده بنوعي تري علمية حتى علاقاتي واكسا إذا الله تلفون لجين وحلجين لكن وحي هو هذا يسي سؤال كودي تسمعها وحي هو هذا يسي قبل إن على حال مرنا محكمة دور راعي ماي هل مرنا علمها بوقن أو صارك ماي محكمة أو أوكي أنا داسي لما محكمة كان جوتها بين شكتوان الوداري waxaa la rabaa wixii ilaahay ku ogi aad ka sheegto been ma aha hadaa xataa u tigin ilmaha no problem haddaad maxkamad tigin no problem duruufaha iyo dhaqaale darrada ayaa kuu keeni karta inaad ilmaha u tigin laakiin hadda waxaad sheegaysaa sida ii muuqata wujada ka aqrinaayo adoon maxkamadaha ka xaadirin inaad tiri maxkamadahan tegin ما محكمة كحاضر داير واتكي لكن last time متجين فودي وقت جاي سامح واي إيو باسبور ما يسنين مرة هذا اللي مرة لكن محكمة 6 جرات تكتي هذا 6 جر عملت ها بوق الشارع 6 جرات بوقت عيالك أركتي ها أوكي صابت عزيز المها والله قاتم محيط نوشك صوبته المها لوقاتي المها وحلوقاتي المها عادي لوجي نيو عادي لوجي إذا جيسي يعني تدخل جيسي ما حيكون عادي المركه هور أيضا ما حيكون عادي المها واحد لقي وحمد عن تبى فودي جرمر كان جي جرمر كان كديبي سو جرمر كي كسر نقطي كدب كمناغنا كنا لا يدعي إسبتالك أدي على المها سكول لجينين وعباد الله صعون وعباد الله مركي أكيد ستي أنا إيطاليا أصلا سعودي سو المها هذه ساسة لوقاتي أوكي waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha marka hore maxaa laydinku maagay oo ilmuhu sabab baa jirta laydinku maagay oo laleeyahay qayr mas-uul waa waalidkan maxaa hooyada lagu haystaa inta xog haysa macluumaad ilmaha horta hooyada sharci waddanka deganeed oo sharci ku leedahay sharci talyaani haysa talyaani deganaa soo waa soo booqan jiray sometimes oo tagi jiray ani power xataa hadaa ilmo dacweynaa xataa power oo ilmaha ku dacweeyo iyo sharci meeshaas ma ku lahayn idaa sharci haysatay idaa meesha deganeyd soo dacwad oo waxaa lagu soo rogay soo dagaal ay gashay gabar oo ay xajirto ay dharbaxday oo dagaal oo markaas iyadoo markhaatiyaal caddaan arkayaan ay gabar dharbaxday oo Soomaaliya ma fahantay moogi waxay isku qabsadeen ayuu tumiyaa moogi diracmiyo adiga waa iska taqaanaa adiga naa kale dharbaxday soo markhaatiyaasha lagu cadeeyay maxkamadda waxa ku socday marka dagaal ku socday waayo
so adiga kiiskaas waxaa isugu darsamay waxaa kaloo isugu darsamay okay dowladana mucaar waxaa qabsaday dowlado cunsuriyiina soo ilmo badan al qaadinaya markaas okay adiga talyaani intee joogtaa magaalo joogtaa talyaani magaalade magaalo baarido brinzil lahay ayada xagee joogtaa waxay joogtaa qaybta Sicilia waqooyi koonfuran kala joognaa wadanka waqooyigiisa joogtaa aan wadanka koonfurtiisa inaad kulantaan macquul ma taha labadiin oo sartaan inaan kulanno aniga hadda koonfurta yani ha waa kulmi karnaa waa la kulmi karaa no problem okay haddii maxkamadda hadda lawyer European loo qabanaya ilmaha inkastoon hayo xog saaka markaan baaray in adoption caruurta laga dhigay oo caruurtaasi ay ka micno tahay dad korsada oo la iska sii iska qaata ay saas hadda maxkamadii ugu dambaysa saasay soo qoreen waxay dhaheen adopti oo forever aan rabnaan ka dhigno so anagana waa ka diidnay abiilan ka qaadanay so abiilka haddana waa la soo diiday so ha runtaa waa way jirtaa taas okay saaka qof looyaradan la hadlo waxay ii sheegtay in ilmihii laga dhigay iska qaata rajada kaliya la qabanay ay tahay in maxkamadda Yurub la aado ha maxkamadda European Union taas ugu power badan in la aado marka adigu diyaar ma tahay hadii maxkamadda kugu xukunto inaad afta koow hooyada xiriir fiican la yeelato si arrintan caadi loogu soo celiyo labo in wixii dhaqaale anaga bixin laakiin aad maxkamadda timaado oo warqad loo inaad ismiga baasahay haddii xitaa aysan haysan karin hooyadu ilmaha ina adiga haynaysid haddii xitaa iyada lagu eedeeyay sida qodobka aan ka arkay inay xanuunsan tahay maskaxiyan adiga maadaama ina anaa haysan kara ciyaalkii aad tiraahdo diyaar waay ha wixii ay u xukuntaan ma fahantay diyaar waay okay su'aasha kale oo aan ku weydiina waxaa weeye ilmahaaga cunug ka mid a yaa hadda waxaa la ii sheegay inuu hadalkii gabay oo sida qof autism delay speech ku dhacay so adiga so waxyaabo badan been oo iska soo qoraan waxay dhaan kan ma hadlo kan kaas waaye kan maxaa la dhibaato badan uu soo maray noloshiisa حتى waxay soo qoreen in cunto fiican la siin jirin adiga waxyaabo badan oo surprise ah oo macquul ahayn ay soo qoreen حتى maamada حتى hooyadii ilmaha ina shaxta way ugu direen waraaqi waxbay u soo qoreen oo yaani gaalada ku sheegaan mogtahay markay qodob ku weystaan qodob kale ku soo qorayaan mogtahay iyada حتى waa lagu diro hadda qalad ay gaaminsan tahay qof alaal qofkii iyada la hadlaan waxa way qalad ay ka dhaadhicisay soo taasna maaha hal su'aal aan ku weydiinaya oo muhiim idinkoo muddo kasta gaashan oo isku noqoteen markaas ayay ku timid adoo qol degan markaas waxaa ku tiri daawada uurka qaado shaada uurkiya markaasay waxay kugu tiri haddaan daawada uurkaba qaadanayo xagga qof martiyo kale aan ku ahay xagga iska seexo ana intaas ka seexay dhaaf maya intaas ka seexan ma dhihin laakiin waxaan dhahay maadaama ilmo naga maqan yihiin hadda qof ilmo ka maqan yihiin sharci ahaan waxaa waa dee ilmo kale haddaa dhashid isla markii automatic loo qaadanaya mogta sidaa darteed waxaan dhahay dee yani ilaahay aakhir uu noo haystaa annagoo ilmo naga haysto haddaa ilmo kale dhalno haddana la qaato oo gaaladii u dhalno soo waa laga fiican yahay soo waxaan dhahay aan sameyno markaas aan kala korino ilmaha ma fahanti hay ma siis kiniinki marka daawada ma siis marka daawooyinkii wixii ahaa waa isticmaali jirnay soo iidan waxay dhahaysa daawooyinkii waa tuuray iyo waa furay iyo kaas sameeyay iyo soo marka si xanaaqa xataa waa u dhahay niyo haddaa daawooyinkii wax oo saan ku dhahay eleelin oo rabtid ilmo inaad dhashidoon laga qaato soo waxaa dhashid marka waxaan ku dhaha xataa ma dhalana ku dhaha waa ku weyn karaa xanaaqna u dhahay taas ma fahanti laakiin qof dee ilmihiisin karaa ima la ma fahanti gabar kastoo kugu meersan waxay dhasho adaa iskale waxyaaba xanaaqa u dhahay way jiraan waxaa ku dhahday gabadha ay kugu adeysay inaad ku tiri cunugan wuxuu eg yahay nin hebel hadda ka horna soo hebel buu eg yahay cunugan maya ilmihii aniga eegi sabradooda waa lagu soo diri karaa aniga intaagan waay 3 wiil oo naga maqan iyo hal gabadh cunugan ku tiri aniga kaama dhal maya adiga gabadhaan waa ku furfuran tahay brada gabadhaan maxaa la isheeday hooyo ilmaheeda la qaatay waay soo marba qof iska qabsanaysa ku dhigaysa laga yaabaa soo aniga ina caayo ama wax dhaho ma fahanti maanta sharaf iyo karaamo iga mudan tahay 3 wiil iyo hal gabar ayaysa gabadha hadda aaw haddaa hadala xanaaqa u dhahay ama aan ku xanaaqay waxyaabo ma xasuusti aan dhahay way dhici kartaa laakiin it's not true wax serious maahan soo familygana waa ogtahay marmar waa la isku kacayaa ma fahanti laakiin qof ilmihiisa inkarayna mihi qof ilmihiisa dacweyna mihi
برادا ما فهمت قبل أصلا وحقيقة مرتاح الشرف حقيقة مضطهي gabadhi hadda awo gabadhi awo saddexdii loo garta قبل إذا وين ها أنا عايزون قبل صدق أنا ويمقيه لكن تنو حرجينا إنه دعودي واحد نوفرنا أو نصور هذين إنه نوجي مع إيطاليا ونوجي قادرين okay فدي شرعي ودك يوربك وحقرا iminka waxaad xaqiijinaysaa ilmaha ala dhashay ها الميجوا ها برادا ها okay way waxaad iminka xaqiijinaysaa oo looyarkaada kala hadli karaa inaad maxkamadaha 3 jeer tagtay maadaama iidu ay tahay weligii maxkamad ma imaan ما 3 jeer maxkamadda inaad tagtay isku aragteen adiga iida dacwadda aad fadhiisatay ها 3 jeer ciyaalka inaad booqatay ها مرخاتياشي ترجمانه ذي وحي دنا هاي عدين دنا هاي marka intaas been bay ka sheegtay iidan leeda intaas beena ka sheegtay maxkamad meel raacin iyo ninkan uu dacweeyay iyo ninkan saano ii galay iyo dabacadaas waa ku aqaana waa iska dhahdo iska calaasha waa iska qaylisa xaqeen u leedahay hadii si loo fiiriyo foodi oo ilmaheeda maqiyiin brada oo qof garab istaagay maanta oo Soomaalinimo ma fahantay ama reernimo uu kacay oo noo caawiyay ما فهمت والله يوري واحد ما فهمت وحير يسوق مركب وحير يسوق ما فهمت برادا ما فهمت واحد والبو ايش كمان شاشة نو غارسي عيفنا كومنتيغا شاشة مليون كريدا طبعا كنا قفاتي شاشة مليون كريدا شاشة هلا قراعو سي aan u furno commentiga gabadhuna ayaduna si ay u hadlo akhlaaqda ninkaas u hadasha laga rabaa laba rabo ay iyo hadal xumo iyo been waashu la baaraya haday gabadha kugu cadaato inay been ka sheegayso ninkaas de waa qof been leeyahay طيب يوسف عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام داير يا إلياس ويدي سلام لبدين ما كان قاعد قبل عاود يقولوا من قبل ويمانيسا هوس جوجتا هدر التليفون كلا هلاي ميدا هوس وضايا معها وكنت لجرن لبدين إنها هالكاس إيمان وقبل السيب إمادو لبدو وضع هدلان داير واكو fiirsanay ma dhuumanin aniga commentiga waa xirtii soo saar oo ku soo qoray okay camera hay soo marka diyaar mihi wax yar waa is soo diyaarina haye wax qayb qaba Allah nasolo si faataxada la akhriyo bismillaahir rahmaanir rahiim faataxada loo akhriyo inuu ilaahay wax qayb qaba oo ka dhigo halkan kuwii lagu heshiiyo wixii islaax inuu ka soo baxo meesha wax wanaagsan ka soo baxaan faataxada loo akhriyo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد إلياس بقول لك بس اديت تسفي على محكمة ولا شيء ها استيبل نمو دقنا شو أكلها شيء أفهمه لقاها مقل لكن وحلا باريا لما حاشها وحن كشكي قبا aniga hal arin bas ina maxkamada tigi an kashaki qaba laakiin waa baari maxkamad aan tigin way jirta daayro ma faantay hadda maxkamadii ugu dambeysay oo bil ka hor dhacday ma tigin laakiin lawyer u dirsaday lawyerkaas ay soo gudbinay foodi waa dareemi kartaa brada ma faantay foodi شقيرة ومرمر تورشا اسكادا تليانا واسكا تقانا واسكا بديهاي هذا وشقدي ابوين على عصب برينا ما فهمت هذه اللوير كي تيكتكي حتى بسكي وحي باب الراعي وحي حتى ميسن ما ابودين رنتا في عمقته اي ولقين انت صومالي وتجي وحمدين هل عاويو ما فهمت لكن واحد بالله كيني كرو يعني قف دقال يو بروبليم يو بوق يو حاسن هذا كدر سنكرو مي قف ilma kama qiinay ma fahad qofkii hatta wuxuu niga sheegay waxa inaan iska cafiyaan diyaar wahay ma fahad ilaahay wax walba arkaa brother qof maxaa lahayd hadda problem ibuuq diyaar waa nameehi ma fahad soo hadda kaliya inaan ka fikiro ilmahayga sida uu soo ceshan lahaa oo maxkamad caalami u qabsan lahaa waxa la yaabana maxkamaddu hadii xitaa ay eedeeyaan gabadha aabihiya joogo oo ku qoran si ilmihiga adi maxaa halays aniga wax ma halaynin ilmaha hadda ninka islaamta waarta ma hayaan si aniga ilmaha maxkamad maxay sameeyeen fiiri aniga Denmark ma joogno Denmark waxa loo galeeyay caadi ahaan 3 bilood bas inaan joogo horta sharciga oo Talyaaniga Denmark iyo European waxa lagu joogi karaa 3 bilood 3 bilood markay ka dhamaato
hadday xataa ilmaha sheegtay kaa joogaan qof walba hadduu kaa joogo maxkamad ma tegi kartid booliska xuduudka ilaaliyo iyo maxkamad gooni waay haddaa inta tago aan soo laabto haddana waad tegi kartaa soo laaban kartaa haddii marmar waxaa laga yaaba 3 bil markay kugu dhammaato iyo maxkamaddii wixii inay iskeeni weyso oo baasboorna kaa maqan yahay baasboordii waa naga cishteen talyaaniga si joorna besa haysan ID card besa waxay noqotay Soomaaliland la xiriir oo baasboor Soomaali laga soo diro aniga alxamdulillah hadda way soo gaaray Soomaaliya baasboor laga soo diray ilmaha laka ku qoran ilmaha ninka hadda Jaanis haysto oo u dacwoon karo oo ilmaha markaas oo Jaanis ka haysto oo dadka dhahan aniga waay anigana waa iska taqaan Talyaaniga iska jooga oo waxba oo shaqo xataa toos haysan laakiin maxkamaddu waxay dhahaysaa haddii aan siino ninkan ilmaha muxuu ku biilaa maxkamadda hadday dhahdo ninka haddaa ilmaha siin muxuu ku biilaa ilmaha dibraada haddaa dhulka seexan xataa way la seexanayaan ilmaha anaa dhalay ilmaha maxaa lalahay ishaadii qolkaa yarkaan deganaya sariir taalo sariirtan ay seexanayaan ama waxay seexanayaan meel ilaal meesha seexanaya ama waa wada Soomaaliland geena ma fahantay maxkamadda laakiin maxkamadda waxay u baahan tahay fiiri lawyer private ah lawyer oo dawlad ku soo qabatay horta wax mataraya moogtaade maxkamadaha xataa warqad ay soo diraan wuxuu ku leeyahay ilmahan waa caadi u qaadanayna saan waayay ma ogashaa ma ogoli okay abiila ka qaadan kartaa maxkamad saasa ku martayba hadaada haysan lawyer private ah ama maxkamad European Union ah ma fahantay ilmo badan oo Soomaali baa maqan kartaa maxkamad saasa ku martayba wixii ka daba dhawaaqay anima ka yaga goor baa caday hay fur kamerada dhimale no baakana ay shidan hay fur kamerada muuda ku jirtaa ka bax muudka gabar baa caday muud ka bax okay هذا magacaaga muxuu yahay xasuusi سعدية عمر حسين سعدية عمر حسين ninka ostaqana Soomaali salaam bal salaam labadii noot وعليكم السلام عليكم السلام لك انا كاقاده وهس بوسينو سلام عليكم انا انيغي سكتيد واي سلام عليكم ادي ودي ويس انا كو دهنو bal sheekasta labadii sheekasta so xalay isku arkay asaaka markaan soo kacay daar cali soo barnaamijkiisa ku xirnaan jiray maxkamadda ya dadka codeeyo dadka laag saaran kamid ah saaka waxa soo kacay sawirkayga oo ku jiro hada qof kale ma ahane ya gabar baad cadu way waa ku soo baaray adiga noqotay laakiin walaalahay macana beent inta la eg ya ma fiicno hadda waxaan ka codsanaa xafis inay weydiistid horta ma faad labadeena qofkii gardaran oo dhibaato suubiyay cafis dalban doona cafiska hanoo dambeeyo laakiin waxaan ku weydiinaa ilmaha goorma la qaatay haday waa dhageysanayay ilmaha goorma la qaatay هذا سوغورت فير هذا السؤال فير يعني وحي سؤال انا ودي هذيك جواب لكن هذا سؤال يدين ay daahirona kala dhaxgal marka maadaama heshiin karin okay way ma xartayna shaqa daway wixii oo daar cali soo rabay weydiin adiga qalad waay abees ku qasmin ishak gabar baa cadayna xataa taariikhda iloobi karaa dhimale laakiin adiga maxaa taana weydiin ilmaha laba waxa la qaaday haday markaan dhageysanayo waxa ku dhahday ilmaha goorma la qaato wuxuu ku dhahday 2020 gabadheeda 4 sano jirta aaba 2 sano jirtayba sanad jirtay so ilmaha waxa la qaatay 6 waxa dhalay 23 Abriil 2018 maalintii la wareegayna waxay ahayd 26 isbitaalka anoo joogay qolada social sanadkii 2018 ala qaad ha ilmaha waxa la qaatay 20 lama qaado 22 lama qaado ma la qaadin sababtoo 20 gabadheena oo 4 hadda September tan 4teeda u buuxsamay 4 sano aabo dhalatay aabo joogtay ba hal sano jirtayba gabadheen ma la qaatay gadaashood dhalatay ilmaha waxa la qaatay 6 ma ka taagno fiiri taas mur ma ka taagno ilmaha waa maqay wuu iloobi karaa kiniga aabe stress ka hay wuu iloobi karaa okay way fiiri qaladka anay saar baa ilmaamayba ma fahantay taas ilmaha waa maqayhiin waa la qaatay ma fahantay so abayaasha dhama saas fiiri abayaasha dhan cunuga dhalashiisa ma xasuustaan ee Soomaaliya taariikhaha ma xasuustaan Soomaalida ma qiimeeyaan taariikhda waa iska saas أنا حتى ما مرض أسكي إله عقول وش هذا سانتا ويديه
اوكي daahir marka waxa ku sheegaya isbitaalka markaan dhalayay horta koow kiiska markuu socday ani jarmalka ana cararay asaani igey taas waa xaqiiq beenka ma sheegayo jarmalka uu igey kaamaan galnay kadibna go'aan laga gaaray Denmark waa lagu soo celiyay ani Sweden ma aadin asaa horta taas ku darsaday koow ma tahay soo marka lagu soo celiyayna waa la raadinayay waxa lagu wareejiyay qoladii ilmaha kadibna meelal nagula xareestay waxa la dhahay ninkaaga ma u sheegtay ma wacday inaa meeshan ku jirtid ma u sheegtay haan ku dhahay waa wacay waxa dha meeshaas ku jirnaa ilmaha kaali mas'uuliyadooda waa haysataa maadaama aan qeyr mas'uul ee qoran tahay oo ilmaha guri ku xigtay ee qoran tahay kaali ilmaha ka qaado meeshaas joognaa naagta shooshallada u tag ilmihi inaa arkaa rabaa ku dhig wuxuu dhahay maxaa la dhahay waa mashquulsanahay shaqan ku jira maalintii dambe markaan fooshi qabatay oo isbitaalka la geeyay anoo foolanayo naagii soo shaleyntii imaadeen waxa la ilmaha waa la qaadaya cunuga marka dhashid iyo saddex kale waa laga qaada saasa u imaanay ana xanuun daranayahay ina dhimana ina noolaana ma boogiyo waxaan dhahay waayahay ani waxaan ku dhahay ilmahayga raali kamii ina laga qaado laakiin xanuunka ihayay iyo waxa la sheegay way kala badnaayeen qof oo dhalaayo waa in qof dhiman rabo oo godka agtiisu ka soo laabtay Soomaan soo markii aan isbitaalka ka soo baxnay oo guriga la keenay maxay dhaheen go'aan la soo gaaraya maxaa la warqaday soo diyaarsanayeen waa u sheegay waxa ku dhahay wiilkaagi saddexda cunug waa la qaadanayaa ma og tahay wuxuu dhahay gaalada iigu dhiib gaalada inta aad heen lahayd gaalada inay heeso ay waa la qaatay ay dhaadeen soo la qaadanayo waa la qaatay waa la qaatay waa la qaadanayo no beemish ani jarmalkan ku ogaa ma og tahay jarmalkan ku ogaa 2 bil telefoon tahay اوكي واي إيكا هذه بين لو قدرت ما ترى تلفونك مو بدلت صح ما كنت بكوي صح تلفونك بدلت بعيد نو انا تلفون كما بدل تلفون كيغا هيستا اساني سو خريرينين داهرو ماشي انا قف بين شيء معها اوكي ويدي مو شكتي كله انا جرمالك كسو انفع واي او سو نقطي مو شكتي كله ويدي مي شكتان نقشر مو شك markii la soo celiyay oo la qabsaday oo meel la igu xareesta u sheegay اوكي يا مركي ميل لو xareesto oo meesh lagu xareestay kama soo qaad meesh lagu xareestay qof horta soo gali kara ma loo gol yahay waay hatta ma loo galo meel booliis soo qoyma laakiin hada hal joysa ku banaan naagta ina u tagtida dhaad ilmeyga ana mas'uuliyada aabaha si heesta labada cunug iyo kan hada dhishta ma haysanin moogtahay labada cunug ana mas'uuliyadooda heestay saddexdan ana dhalay ilmeyga anoona aan taqaana meesha go'aanka lagu gaarayo ogeen mal qaadi kara aad dhigi karta naagta meesha ka shaqeynaysay iyo meesha socialka digin way isku dhow yihiin laakiin anigu waxa igu dhahday oo ilaahay ugu ogyahay weesa ii dhooran inaa igu dhahday ilmahayga gaalada EC inaa igu dhahday aan u dhaaran karaa ani kitaaba gacantu gelina adna halka mid oo laga rabo waxay tahay warqada kiiska oo soo galay inaa maanta kitaabka gacanta noo gelisid maxkamadan joognaay fiir اوكي intaas ka badan xataa inaan ku dhaho ay istaayay sababtoo ah meelan ku geeyay jarmalka ku geeyay waxa daray meelka meeya facay ilmaha ay qaadan raba waa shakeysanay kan waa inta rab ku yaa jarmalka ku geeyay waa soo noqotay qof muu sheegin maxaa la ishaadi marka booliska ku imaadeen oo meesha ilmaha lagu qaadanayo laba magaalo kala joognay markaas leedahay ilmihi la qaadanayo la dafo kaali soo diyaarad xataa daan soo raac meesha degdeg may ugu keenay maxaa lagu dhihi waa laga qaatay shaqada wax ka soo lagu dhaha hadii waxyaabo aan sameeyno ma caadi u geysay inaan jarmalka igeysay oo ilmaha laga qaadana aan ku dhahay oo ay ugu qalqalinaysi inaan jooga aan walwalo walaacay oo jarmalka igeysay taas way saxan tahay laakiin ani inta ku soo wacay ma ku dhihin waa soo noqonaa ayaga qasab ay maxay dhigayso waa soo noqonaa laga dhigay oo iraadinayay taas adna shaqo ku milihi laakiin dadaalku waa dadaalay adna waa ila dadaalay koobi hore laakiin markii ilmihi la soo celiyay oo dawladda ninkii dhahaata ilmaha gaalada EC iyada stress ku furnaa mufantay shaqada la noqon markaas Elias waxaad ku eedeysay qodobka koowaad oo ah in aad oo shaqsan tahay inuu qoro warqad ilmaha laga qaadanayo haddii uu isaga warqadda qoray seebuu kula soo cararaya oo jarmal ku keenaya idhaadhe ani waa ugu shakisana ilaa hadda xitaa ilaa uu kitaabka gacanta haddii uu isaga oo rabay ilmaha laga qaato oo warqadda qoray seebuu asaga kula soo tahriibaya oo jarmal kula keenaya kaam kula geenaya ciyaalka oo anigu waxaan aqaynaa soo noqotid aan ku dhahay meesha inuu ilmaha ila wada ah faamiliga ku qasbeen laba habeenaa la baryaay soo marka ani ticket ka jartay
oo baxay oo qasab albaabka la keenay soo dib mana jooji marka jooji waxaad ku eedaysay Ilyas inuu san maxkamadaha markii la dacwada socotay uu soo kula tagay isaga laakiin wuxuu sheegay 3 jeer inuu maxkamad kula tagay no daayir anigu wuu ila tagaa ku dhahay laakiin hal mar oo ila tagay markiina wuu i dacweeyay gabar aan la socotay oo walaashay yaa qajaaro maxkamada kula tagay hal mar maxkamad oo maxaa la anki istuursaha aniga asmiisa salaameena ani soo urkeeda lahaay gabadha hadda noo joogto midaas aan ku arkay mid kalena laba kalena waa isla tagnay runtiis waa saddexda maxkamad oo ila tagay ani ma ku dhiin maxkamad ma tagin laakiin maxkamadahaas dhan waxa ka dambeeyay 10 maxkamad iyo 10 boqol booqasho ka dambeeyay 6 sano ilmaha maqayihiin 6 sano runteedu waa 6 sano maqayihiin yani waxay u maqayihiin fi waasad qafiir lawyer brief da ma isna anaga lawyer brief da ma isna lawyer maaha daahiro lawyer looma baahna meeshaan waxaa loo baahan yahay hooyada haddii qeyr mas'uul laga dhigo in aabbaha ilmaha qaadan karo lawyer ka mihiga adiga ma samaysay meel la joogo oo cadaan joognaag ku baxday no naag ani cadaan ma ku dharbaaxin laakiin ayadoo meesha ka soo baxday afka iskala muranay naag oo waxaa joogtay meesha oo maxaa lahayd kuwa oo maxaa lahayd badagooga oo meesha ka shaqeyso kadib ayadoo xanaaqsan gashay ee waxay dhahday naagtaasa mataqaana ila dagaashay kadibna maxkamada ila qortay maxkamada asi wuu joogay ayada labadeenaba maxaa lahayd ani wax oo naagtaaseeto oo dagaalka as dagaalna dad saaxiiba aheen waani heshiinaan dhani kadib gadaal iga dacweysay maxkamada isaa leegeeyay maxkamadan ani miiga guuleysan waxa la qoftan ayada diidmo wadankan dadka Afrika lagu celinay 5 sano u dhamaatay saas darteed shaqo kuma lihiin kiiskan waa la xiray ani gabadhaasna ma dacweynin daayir gabadhaasi hooyo waa ilmaheesata dagaalka ani is dagaalni ka sukow gabadhaasi warqadan ma qorin warqada sida u qorantaa qaabka oo loo qoray gabadhaas noocan ma qori karto warqada email-ka ku soo diri karaa yaa soo rabaa inaad ka dhaarato inaad wax lagu kulahayn warqadaas gabadhaas ay sheegayso dadka horta shacabku ku tawashta ku noqo inaad ka dhaarato okay waxa kale oo weydiisaa hadda waa u dhaaranaya laakiin hadda ka baad wixii ka dambeeyo inaysan mar kale u qabsaneen ama iga shakinin ma fahantay ana go'aankaas ridaye adiga waxay wallahi waxay ugu billahi waxay ugu tallaahi inaana warqadaas dawladda ku dacweyn afaaraha ilmaha lagu qaatana aana weliga lagu yeelan waxa igu wallahi oo igu billahi oo iga tallaahi ina ilmahaas aniga dacweynin lugna ku lahayn dacwadoodii saacadii waxa laga rabaa maxkamadda waxay ku xukumaysaa Ilyas been baa ka sheegtay Ilyas okay haduu asaga dhaartay ani markii koo maxkamadda soo dhageyso maxkamadda ay aqrisay wujiyadiina maxkamaddii xalay ninka inuu iska yahay aabaleysi waa sax inuu duruuf dhaqaale haystana waa sax inuu san dadaalkii la rabay aabanimo sameey sax waay laakiin ninkaas waxaad ka sheegtay beeno ay ka mid tahay xalay inaad tiri maxkamad inuu ila tago diiday no daayir adaa i fahmin waa ku sheegay xitaa way dacweeyaan ku dhahay adaa maqleenin ilaaha laakiin dadkii fiirsanaya way ku sheegi karaan waxa laga rabaa maxkamadaas waxay ugu dhahay gaari dalbay gabadhan maskaxda ay ka xanuunsantaa oo maxkamadda horteeda igu dhahan ku dhahay daahir adaa kastoo mashquulsaneed laakiin ani ma laga rabaa inaan raadigiiso oo tagin ma ku dhihin sacdi inaan raadigiiso laga rabaa Ilyas ninkaaga ilmaha aabahoodu raadigi ninkaas ani haddaa warqadaas oo intaasoo sano shakiga igu heysay iyo ilmaha sida oo qaabka ila dhaqmayay aan ku gardarnaa oo mataqaanaa aan shakigaas oo been oo ahaa oo asaga qorin oo hadda ka dhaartay maanta wixii ka bilowday cafis oo iga yahay ma hadda kadibna kuma eeday kartid no ani awalka hore daahir على فين قفل بوي عرفت ايو دعوينه قفل بوي عرفت فاميلي no فاميلي هذا سمي اسكو هشو الله ninka saara uu sameeyay kan waxa uu sameeyay ma fiicna balaad in laga sheego ma faxale anoo hurday waxa isku arkay YouTube waxa inta ay wada marka labadii xaro abtay asxabsiin kulligii social media ma soo gaaro adigana gabadha raali gili cafi qaladka ha gashay أنا قبل دان واحد مو هستي ما فهمت واحد مكقرايبه قف هاي الماذا مقيم يعني قلنا سي ما دام هاي أيتين مكونه شيء سيد اللي هو على ولا شقين أنا عارف سيجتها ما فهمت واحد عنده سوق اللي واحد يبغى سوق قبل أنا عارفيه ما فهمت قف قصة أنا متقان قلد يفهمينه سو مالوين إني أنا قلد يفهمينه صحت إهين
gabadha miskiinta ana wada ilmahaas ilaahay noo soo celiyo bilaabo labadiin waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno sidii ilmaha loo soo celin lahay kaliya wax alaalo waxaan u xukuntaan oo mataqaana iishaadi oo diyaar ah unahay ma fahamtay gabadhan cafis ay iga tahay ma fahamtay wax walba iga sheegtana maxaa la maanta wax ma weystay foodi waa dareemi karaa ma fahamtay ana xataa aabbahay okay daahir maxaan lahay ilaa cunugtaasi caloosha ay ka gashay ilaa ay ka dhalatay ilaa waqti xaadirkan habeen iyo maalin inuu igu dhahay cunugtaas anima dhalin Itaaliya kala imaaday iska soo xaq ayadoo caloosha ku jirto taas raaligilka bixi waqti taas raaligilka bixi karaale haw xanaaq leeyahay hadii la fiideyso oo dhinto maxaa la dhahay oo cunugtaan hadduu iskuulka firnaanahay hadda fasaxaan ku jirnaa hooyada inta ma joogto qof ma joogo isbitaal maxaa la dhahay qofka ugu horeeya loo wacayo waa kuwa mataqaana soorooyinka oo kiniisadaha asagoo nool ilmihiisa isku qor ani haddaa ah qof oo maxaa la oo cuqdad badan asoo intaas igu soo biimadineen cunugtaada iskuulka u saxiix warqadii anaa gacanteeda hadda wuxuu ku dhahay xanaaqsanaa ku dhahay waa ka xanaaqo dhahay raaligilna oo ka bixi okay Allah waa ugu fiican okay tan kale daahir midaan ku sheegaa markasta wuxuu igu aaday inaan ani maskaxiyan u xanuunsanahay haddaa xanuunsanahay cunugta siriista 4 sano jirto 8 bilo hooyada Talyaaniga joogtay intaan ka ahayn anaa koriyay hooyo xanuunsan ma cunug korin karto muxuu ani igu aadeena xanuunka haddaa xanuunsanahayne qof xanuunsan hooyo xanuunsan waa xanuunsan karaa ilmihiisa ha ka qaata gaalada foo'eel dhaqamoondihiida waxaa la mas'uuliyadda aabanimada anaa ka daba wada wiilka dhexda ku jira xitaa wuu diiday nin xawaalad iyo diri jiro wuxuu ku dhahay ninkan uu ogyahay cunugan aniga adiga labadeen laba cadaan nahay cunugan nooma eko waxyaabo badan oo isu soo biilay haduu hadeertan ilmihiisa adiga qalad ka galay waxa way cunugan uu sheegay waxa dhaqsan dhahay inaan ku dhahay adiga hadda kadib aniga ma dhalin markii ana daawad xanaaqayga daar hadaan dhaxta ma xasuustay aniga hadaan dhaxta fiirada adiga tahay maani magac siin lahaa magacay ku qori lahaa aniga oo maanta la guban lahaa la kulaan magaca asmaasi daahir soo ku imaaday waa ku sheegay magaca waa u diiday mudkala qosolka waa gabadha daacadnimada u dhow maxkamadda ooyinta waa wiilka u dhow qosolka daacadnimada waxa u dhow gabadha ooyinta waxa u dhow wiilka qosolka gabadha daacad u dhow ooyinta wiilka u dhow qosolka gabadha u dhow daacadnimada ooyinta wiilka u dhow qosolka gabadha daacadnimada u dhow ooyinta wiilka u dhow okay qosolka gabadha daacadnimada u dhow ooyinta wiilka u dhow okay wiilka si fiican loo galbaasho wiilka 1400 oo qof ayaa ka codaysa ka badan saamaryahay 1000 okay 4000 oo qof ayaa ka codaysay waaya ka soo baxa marka mudka waaya hadda marka waxaan rabnaa ku sheega hadda waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno sida ilmaha loo heli lahaa kow in xiriirkiina oo wanaagsanaado oo WhatsApp-ka iyo telefoonada aad balooginina si walaalnimo leh aa wada shaqeysaan hadda mis qabtaan ما شقي اسكو مدين أنا محل هاي داهر مركا هرت داهر ومدهم كل شيء جاي مركي أو أن جورج اسكو قطعني عن أنت كلابته أو هشينو نليه شيء ده هذا دا عدا هاي الميج وسوع علنا يا وكل سوع علنا أوتجي كوب محو يقول بلعبي محل عنق إن ضلنا مرة أنا وحنا ولا له ماشى سلي دكتي وحنا كده إلهي وحنا جبري عنق أو متقن المهس يسوع علم يسأ وصبره إلهي عايزي ولا كي ولا بهم كل شيء جاي أنا ولا ودي بته واي حد ما حد كرتها مركز سعدي ما كرتها الياس ايشك markaan saas dhahay wuxuu isticmaalay waa iska fahmi kartaa something oo nin inaag isqaway uur iskaga celiyaan waxaas uu asaga isticmaalay aan weligay xabad daawa ma cunin
uurkiina markaan qaaday oo dhowr habeen guriga oo waqti imaanaynin waxaan dhahay ita waa ka bixina talyaaniga aadayna aniga xaaladeeda oo kee ma aha labalaba dareema muxuu dhahay uur maa leedaha uura haddaa leedaha u dhahay talyaaniga kalimaanta ana uurkaas shaqo kuma lihi waa dhamaad kiiskaas uu sug marka waa iga sii raaligelin oo iga sii laakiin midaan kuu sheegaa soo marka maalintaaseeta waxaan oo aniga asaga u heshiina anagoo 2 sano kala maqneen inuu ilmaha ii soo celinaa maadaama oo ilma ii soo celinaynin oo tii kalena saas iigu dayacay ani hadda hadduu kiiska galayo oo ilmihiisa keenayo waa ku taageeraa laakiin aniga asaga ma ka wada hadli karno mana ku heshiin karno haddaanoo dhexeynaysa daahir diyaara ahay waan ku faraxsanahay in aabbaha saddexda mas-uuliyad ani qasab ah ugu suubiyey oo daba waday inuu maanta oo dhihi karo xitaa informationka xitaa waa siinaa whatsappna weligay ma baloogin waa hal kasta aan wacaa maalin kasta aan wacaa laakiin tan oo maxaa lahay aniga adis 2 qof ajnabi aan kala nahay laakiin si walaalnimo leh oo ilmahayga igu soo noqdaan oo qalbi furan waa ula shaqeyn karaa laakiin maanta hadduu fiican yahay biro way isgidinayaa marka ani ma la shaqeyn karo runtii inaan sheegaa fiican waya sacdiya ku dhigsanay sacdiya waxa rabitaankaaga aad ka hadlaysid iyo waxay maxkamadda kugu xukumaysa labi kariyihiin maxkamaddu markasta iyo cadaaladdu ma xeerinayso in feferkaaga laga shaqeeyo iyo waxaad aad jeceshay laakiin maxkamaddu waxay xeerinaysaa danta guud ee labada sidaa darteed danta guud waxay tahay ay masaalixda ku jirtaa inaan Ilyaas ku cadaadino inuu ilmaha soo celiyo adigana waxay kugu xukumaysaa maxkamaddu inaa Ilyaas si wanaagsan oo aabanimo la ula shaqeyso adigoon go'aanaynin wixii qalad oo ka galay sidoo asaga u xasuusanay wax kaga shaqalad markaas ayaa la gaari karaa guul oo ilmaha la soo celi karaa laakiin haddii ay tiin laba ishaysata oo waxa dhexdooda ka dhaxeeyay wixii xasuusanaya ilmuhuna ma imaanayaan mid kale labadii waa inay hiisataan ina ilmaha gaalada Ilaahay ka soo qaado oo qalbigiina wanaagsan yahay qalbi aan wanaagsaneyn sidoo ku keeni karaa guul ku gaari karaa amiin qalbiga wanaagsan صح واي asaga gabarka soo guusan kara no problem adigana maxkamadda ugu fasaxaysa adiga ta guusan kartaa no problem okay laakiin miimadu waxa saddex wiil oo Soomaaliya naga maqan oo gaal naga haysataa saddexda wiil ina soo ceshanay wiil Soomaaliyeed wey yaa u baahana okay mid kale adiga waxa la rabaa maanta dad la hadlay looyara la hadlay xiriiraan sameeyay marka lagu soo wac in lagu heli karo okay insha Allah telefonkii aan soo gadanaa hadda kadib 2 telefoon aan suubsana waa heli kartaa laakiin ani halka mid aan kula talin lahaa ana hadeertaan saa igu xukuntay maxkamadda waa suubinayaa maxaa la lahay si fiican waa ana horta cuqdad leeyahay ma fahamtay laakiin maxaa la mararka qaar hadii isku dhac uu imaado wiligeeb waa ka aamusi jiray ani laakiin informationka ugu fiican oo hadda ilmaha ku soo noqon karaan xaaladan ani kaligay hal sano oo 2 oo 3 mar ka tagay inta kale anaa ku daalay xaaladan waa la socdaa maadaama ani hooyada qeyr mas'uul oo ilmaheed guri ku xirtay lagu haysto oo maxkamadii anu fadhiyo adabshoonka oo inta Soomaali la wacay oo asaga ka soo qayb gali waay sharci la'aan ay heenin oo ay baasaboorka iga maqana maxaa la baasaboor la'aan dib soconayso tahriib ku galbeed ma soconayso Ilyaas كعبس باسبور كا ولي حتى مدعين واجا تلياني كسون قتي وقت جا تجان لابو كوني سدح يتمن كهاد إلهي كعبس أو كأبورت باسبور كا حد فر هدي لو جنها لابو كون يسدح لبعتن كي بش الشنات شرعي كا مهي سنين مسميه سنين حد فر تاريخ الفير قارمو دعاء محسوس بوغشي أو لابو كوني يوم حلها كودي لبعتن كودي ما لابو كوني لعتين لابو دي بوقشو او aan tagina jirto moqtay foodi passport ma haysanin ma fahanti passport Soomaali labadi maxaa sheegay ad ilmaha waxa kugu dambeysay 19 2022 iska daa 2023 waa maxkamadda iyo buuq iyo dagaal hadda inuu soo galin moqtay okay hadda marka waxa ku sheegay hal mid aad ku furan inaad واي أباستي محكمة دوغو على سباستي ولا شيء ولا سحبي. أوكي بس أوكي داير مرة ما تابع. أنا نقول كأن هدارة هنا مرنتو أمانك وليد أشياء أسكت قتين التين إيش كراوي. لا أنا مرة والله مرة بيلا ويجي. أنا أسكت قتين على شو سكرتو إيش كراوي كاس. أنا وحرمنا إن نمينه كيس كان المهم نجم مقام الصومالية در إلهي يهور إلهي لعكتر أنا كذا الله يكون خبر. يا سلام مرة لعكتر. قبل ما عدنا عكتر قبل رو
lacagta anaa keenayo hadday ku baxayso 50,000 hadday 100 ku baxayso dadkaasaan ka aruurinaya anaa meelaha gelgelayo ama qabiil urusha ama Soomaalnimo aruuriya wixii anaa looyarku u shubayo laakiin بس وعدنتها أنا وضع لما نقيم دارو أنا أقول لك أنا أنا ما مركب هو قسمني هاي بس دار أنا هو حتى أنا ما هو قسمني أنا هذا الشيء أنا بحاول حتى مرة هنا صادق أنا أسف ودي أنا وحيد شيء أنا وحكي شيء ومجعل مرك إن شاء الله وحي واحد ما هذا وايس ما ده حكم قوي إن عندك على شقيسو المين سيدا عليك دعوة لهاي والله كنا قبت عليك علي أنا أبوه هذا سي عليك بعد الواحد دين بيلعين أو لما نقعدوا إلهي كم سنة دي المتقنا إلى علمي هينيسي waxa kale ay maxkamadda kugu taakuleynaysaa oo soo qiimaysanaysaa hal sano guri weyn kiradiisa hal sano talyaaniga guri weyn kiradiisa inta ku baxaysa alaabta dhiganaysiin kirada guriga inta ku baxaysa lacagtii bangiga ku shubaynaa markaas maxkamadda la horgeynayaa inaad haysato dhaqaale kugu filan ay Soomaali kugu caawisay aad isku filan tahay aad guri u kinaysan karto ilmahaaga ما فهمت لعقتها مرسيهنا بنجاجة لعقتها أنا هستا قولي أوكي نسكر الماء نروح نروح في الليلة مركز الماء أنت كو هاينة ما كرتو أوكي أديلي عاوي أوكي واي مفاتي أديلي عاوي أوكي واي لكن إلا هذا وحاويتانا أو ساسد ميل لكن يعني وجدت ويلو ده حتى قبل ما كم مقلي العقبة لو أروري أو ريركو أروريان لعقتي بولد دونتي وحيانا وحاس وحكم مجرى بين واي أصوبار بين بنقطة أسمعت أصوبار بين واي تاسا مركا أسجن عفس يجي أسا حتى وحمو هستي لكن واحد العقبة أنا ريري سو أروريان مسومالوين سو أروريان أقولني مجرته أنا على ده على داعي بكس وحي لا يسود عيسون هل صار وحصل قيمة سال لعقتك وبحيس يقول لك كريو ما له كريو بعد كده قيمة دونا لعقتك وبحيس لويرك لوير برايفت هذا عير ما دايرو ما كان بيحكرنا ومالنا يا راكو بيحكرت ما لوير برايفت هذا سعدي وانت صادنا ولا سوق انا انت صاد كل كري لكن انا طبعا كنا يرانا وبحيس طبعا كنا يورا هذا لوير برايفت ما تقانا لوير برايفت ساسو سودينا الماء طبعا كنا يرانا وبحيس لويرك برايفت waa iska qaaliya laakiin hadii gacanta loo dhalo برايفت waxay kula tahay inaan weynayo 10 qofood oo $100 ilmaha Soomaaliyeed ugu deeqda wala laakiin waxaan ku hubaa lawyer برايفت wuxuu ku keena fadhigu keena intuu keena lawyer برايفت laakiin lawyerada aysano waa lawyer social way ma fahanti maxkamadda lagu sheegayna jaa wax walba ay ka soo qortay inta ma saxiixaysa maya ma saxiixay okay abiilka qaado waa dhamaatay saasi ku dhamaatay lawyerka ani waa aqaanaa waxaan ka shaqeynaa ilaa maxkamadda New York tagay subsidiya jira wax la aado subsidiyo qaadana برايفت ka haddaan rabo lawyer holidays aan qabsan karaa oo subsidi qaadanay maadaama idii waa gashata maxkamaddeedu lawyer noqo lawyer fiican oo برايفت lawyerka haddii Denmark laga qabanayo hadduu kamuunaha leeyahay iyo hadduu برايفت yahay lawyerka Denmark ilmaha ma soo celinayo sababtoo Denmark baarlamaanka xitaa maxaa la immigrationka way ka awood sareen qolooyinka socialka soo saas darteed asaga maadaama wadanka uu deganeen toos inuu maxkamadda Yurub u aado dhaqaalaha maxkamadda Yurub caadina ku hakamayna anaga Denmark iyo hooyad baadmayna bistaas ma ay Soomaaliyeed dad wax soo barteen ku jiraan dad xataa lawyer laga yaabo inay ku fiirsanooyin ma fahant taas dhimma sameeyna fiican si lagu soo deeylahay waa ka shaqeynaa waqti la gelinayaa wax aan waqti la gelin adduunka ma shaqeeyaan Soomaalida lama habeen dugaal ku hadla gaalka waa laga go'aa daayro mid kalena waa uu sheegaya Ilyas ina Cabdiraxmaan hadeertaan bisha lixaad booqashada ilmaha leeyihiin in ani maadaama leediidu uu tago wiilka waxa la iskuulka wax ma barto wuu niyad jabshan yahay odayga oo balaay familiga ii sheegay laakiin kan kale dhexda ku jiro aad u fiican yahay midna adabshoona laga dhigay oo wiligeyn ba anaga ina arkeenin saas camal xitaa qeynga blanka oo ilmaha la wacay familiga xitaa ma lagu soo darin sanadkan waa la joojiyay maadaama anaga guuleystay aabihiina oo maqnaay marka maxaa la oo maxkamadda abiilkina ani aan tagin oo lawyerkii imatalay
tii kasii sareysa oo Copenhagen biyo qaadka oo laastiga ahne inaan taga maadaama wadanka deganeen sharci iyo economic ahaan ee saamaxaynin aniga laftirkeyga ma taqaanaa sanadkan ma u socdi ilmana ma booqo kar sharcina ma haysto soo ani hadda waxa ka codsanaa inaan laagta looyaradaadii la hadashid ku dhahdid Cabdiraxmaan iyo Suheeb saddexdooda waa booqana markay way ku dhahdaan ani waa maqnaa adoptionkaas wax ka jira male hooyada tagtay kaligeed hooyadan hore u eedeysneed anna document la'aana iheesay intaas ani informationka oo intaana Soomaaliya daawanayso aan kugula talina aye waa sameeyna waa la xiriira waay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka codsanayaa dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha beesha Gugundhabe waxaan ka codsanayaa lacag $10,000 oo ah lacagta ugu horeysa waxaan rabnaa waxaan aruurinayaa lacagtii hal sano guriga waxaa la dhahayaa hal sano guriga ilmaha dib u siiyo intee ku haynaysaa lacagtii gurigan aan ma taqaanaa aan diyaarinayaa waxaan si diyaarinayaa $20,000 oo kale oo difaaca oo haddii looyarka lacag usoo dalaacdo qaamur raam aan kula heshiinayaa horta looyarka marka hore qaamur raam ilmaha inta ku keeni karo aan u shubaya waxaa leedahay saacadaha iyo waxa igu rakibine qaamur raam igula heshii ilmahaas inta aad maxkamadda ugu dacwo karto saa darteed beesha Gugundhabe dadka Soomaaliya lacag ka qaada Gugundhabe waxaa ka rabaa $10,000 ama 5,000 isugu qora ama isugu qora 500 idinka waa go'aankiina waxaa idinka rabaa $10,000 Gugundhabe oo lacag inay ay soo diyaarisaan haddaa qabiil jiratiin oo saddex xulug ay naga maqan yihiin 10,000 ayaa idinka rabaa gabdhaha Gugundhabe hala gaarsiiyo codkayga wiilasha hala gaarsiiyo haddaartiin boqol isaga aruuriya lacag 10,000 Gugundhabe oo qabiil weyn ah oo baad cadale oo jajeelale oo mataqaanaa jidlale kama weynaaye 10,000 Gugundhabe ay keenaan haddaa xarfaantihiin oo dadna sabaatiin 10,000 ii diyaariya waaya soo dhaw Afiif Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم اولا ما هذا كغارتو داير علي سو ارن سوماليين ارن فيعنا او هيسا الهي ku barakeeyo intaas kadib walaalkii Ilyas iyo walaashii Saadiye waa arkaa inay isku soo dhawaadeen aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa halkaas ka ballan qaada caawo in baad cadde qurub joog iyo qorax joog dhaqaalaha hadda ana saartay oo $10,000 ah in aasi Ilaahigu og yahay oo dhab ay tahay ugula shaqay doono waliba hadii loo baahdo waliba in ku keenay xitaa xildhibaanada beesha baad cadde lambarada wadahaya in aasi bareefad u wadahayna taas xitaa ku ballan qaadi karaa wabillahi tawfiiq ana been wala hadlaya oo ku sira been wacaya